waan idin salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaara jilaaga caanka ah Yaash kaas oo kamid ah aktarada koonfurta Hindiya awoodda ku leh. Jilaagan ayaa maanta u dabaaldegaya sanadguurada dhalashadiisa 36aad hadda waxaan idin la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaara jilaagan sidoo kale shantiisa film ay ugu sheekada wanaagsan balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa jalaal ku soo birto subscribe saarto haddii muuqaalku cajab geliyo hadhow ha iloobin inaad like saarto wixii ra'yi aad qabtaan commentiga hoos inoogu reeb siina share gareeyo la wadaag asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal. Jilaagan Yaash waxa uu kamid yahay aktarada sanadihii ugu dambeeyay awoodda ku qabtada dhankaasi koonfurta Hindiya. Jilaagan Yaash magaciisa oo dhammaystiran waxa weeyaan Naveen Kumar Gowda waxaase loo garan ogyahay Yaash ama Rock Star Yaash. waxa uu dhashay 8 January sanadii 1986 da'diisu 36 jir weeyaan waxa uu ku dhashay magaalo ama gobol lagu magacaabo saaxiibayaal Karnataka ayuu ku dhashay ama gobolka Karnataka ayuu ku dhashay khaasatan magaalada lagu magacaabo Bhavanhali. Jilaagani markaan eegno waalidiintiisa Jilaagani waxa lagu aabihi lagu magacaabo Arun Kumar waana qof basla ah ama basaska Hindida ama dawladda Hindiya ay leedahay ayuu ka xeyn jiray ninkan lagu magacaabo Yaash aabihiis Arun Kumar halka hooyadii lagu magacaabo Pushpa. Jilaagani waxa la dhalatay hal gabarta oo lagu magacaabo Nandani. Jilaagani markaan eegno dhankaasi aflaam jilista waxa uu ka soo bilaabay dhankaasi musalsalaadka asigoo ka soo muuqday ama musalsalkiisii ugu horeeyay ka soo muuqday waxa lagu magacaabo Uttarayaana waxaan la daawaday sanadii 2004 kadib 2007 ayuu saldhigtay ama uu soo galay dhankaasi aflaam sameeska ama film inuu hogaamiye ka noqdo. Filmkiisii ugu horeeyay oo ka soo muuqday waxa lagu magacaabo Jambad Huduji waxaan la daawaday sanadii 2007 saaxiibayaal. Jilaagani haddii aan eegno dhankaasi xiriiradiisa oo xiriir la wadaagay gabar lagu magacaabo Radhika Pandit waxa uu guursaday isla gabadhaani oo qof kale ma uusan xiriir la sameynin. labadaan lamaane ayaan aqal galeen horaantii 2016 ama aan dhahay 9 December sanadii 2016 waa dabayaaqadii sanadii 2016 saaxiibayaal. labadaan shakhsi waxa isku dhaleen wiil iyo gabar kuwa lagu kala magacaabo dhanka gabadha waxa lagu magacaabo Arya ama Ayra aan dhahay saaxiibayaal halka wiilka lagu magacaabo Ayush. Jilaagani xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay haddii aan eegno hal iyo laba aan ka eegno saaxiibayaal waxa leeyahay Jilaagan wax balwada ma leh markay timaado nolosha dhabta laakiin inaad ku aragto laga yaabo aflaamta asagoo sameynaayo asigoo sigaar cabaayay iyo waxyaabahaas laakiin nolosha dhabta markay timaado waxa uu kamid yahay aktarada aan balwada lahayn. sidoo kale Jilaagani waxa la leeyahay sanadii 2015 waxa uu guuleystay abaalmarinta Filmfare Award dhankaasi Southka laga dhiibo ama koonfurta waxaan lagu siiyay filmkiisii caanka ahaa Mr and Mrs Ramajari film lagu magacaabo ayaa lagu siiyay abaalmarintaas. xaqiiqooyin kale ninkan laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa leeyahay ninkan basa hore idinku sheegay wax jilista ama inuu acting sameeyo waxa uu soo bilaabay horaantii sanadii 2004 waxa uu ka soo muuqday dhankaasi TV ku baxa lahjada Canada waxaana lagu magacaabo TV-gaasi Udaya TV saaxiibayaal. xaqiiqooyin kale laga diiwaan galiyay Jilaagan waxa kamid ah Jilaagan wuxuu kamid yahay aktarada leh boodhikaarada ama dadiyooga ilaaliyo waxaana xusid mudan in ninkani ilaalihiisa qaaska ah ninka boodhikaarka u ah ka oo lagu magacaabo Ramajandara Raju waxa xusid mudan inuu kaabalaadar kaga dhigay ama doorka kaabalaadnimada uu ka siiyay filmkiisii KGF qaybtiisa koowaad ama KGF chapter 1 saaxiibayaal. xaqiiqada ugu dambeysay Jilaagan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay Jilaagan Yaash lagu magacaabo waa jilaa dhankan waa nin fanaan ama heesa waxa uu hees ka qaaday ama aflaamta hees ka qaaday waxa kamid ah film lagu magacaabo Mr and Mrs Ramajari ka oo hogaamiyaha ka yahay isla asiga Yaash waxaan la daawaday filmkaasi 2014 saaxiibayaal. markaan haddii aan eegno shantiisa film ee aflaamtiisa ugu sheekada wanaagsan kaalinta koowaad waxa ku jira filmka lagu magacaabo KGF chapter 1 filmkan waxaa la daawaday sanadii 2018 kaalinta labaad waxa ku jiro film lagu magacaabo Google asigana waxa la daawaday filmkan 2013 saddexaad waxa soo galay Mr and Mrs Ramajari 2014 ayaa la daawaday filmka afraadna waa filmka lagu magacaabo Rocky oo asigana sanadii 2008 la daawaday filmka shanaad waa film lagu magacaabo Rajuhuli oo la daawaday sanadii 2013 saaxiibayaal. Jilaagani Rock Star Yaash waxa uu kamid yahay aktarada awoodda ku leh markii la eego koonfurta Hindiya aktarada ka xamaasha. waxaa sidoo kale xusid mudan in bartamaha sanadani ama bisha Abriil ee sanadan 2022 la rajeynayo in tiyaatarada loo saaro filmkiisa KGF chapter 2 waxa uu kamid yahay aflaamta sida weyn loo sugayay sanadan 2022 saaxiibayaal. waxaan xusid mudan in filmkani KGF chapter 2 uu ka soo muuqan doono Jilaaga caanka ah Sanjay Dutt ama Baba waxaad u taqaaniyaa tirshada caanka ah Raveena Tandon saaxiibayaal. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay Jilaaga caanka ah Rock Star Yaash kaas oo kamid ah aktarada koonfurta Hindiya caanka ah waxa uu maanta u dabaaldegayaa sanadguurada dhalashadiisa 36aad. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like noo saar haddii aad janaalka cusub taana subscribe noo saar wixii ra'yi aad qabtana commentiga hoos inoogu reeb siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.